nabad dadweyne soo dhawaada dhambal dhigta ama haddaad doontaan gambarkiinaba soo qaata waa biladay hal lagu sheego ama hal lagu sheege maantana waa hal lagu sheego haye aan isla qaada dhigno guurkii hore iyo qaybihiisa kala duwanaa waxa aan maanta ka hadlaynaa kuwii suulay iyo kuwa haddaba wali sii jira qaybihiisa aan wanaagsanayn ama taban iyo midka ugu xiisaha badan ee togan ama wanaagsan oo malaha ah ka aad ugu jeclaan lahayd inaad ogaato haddaba ayga herine isoo raac kan ugu horeeya ee aan soo qaataa waa ka loo yaqaan heerin inkastoo dunidan casriga ah maanta aysan ka jirin gabadhi lagu dabray inaysan dhaafin oo degdeg ay u guursataa oo hadda la marayo casriga dooqaaga la ciyaar ayaa haddana waayo waxaa jiray in gabadha haddii aan hore loo guursan loogu yeeri jiray gumays hase yeeshee taas waxaa kasii darnaa in dhaqaalaha oo aad u yaraa awgeed ay gabdhuhu iska jeclaan jireen inay yeeshaan hooy u gaara amaba ha ahaatee in ay nolol wadaag samaysato kolkase ay istiraa markaan da'dii la isku qoray ee la isku dabray waxa ay is urursan jireen iyaga oo koox ah oo wada guurdoon ah socdaal dheer degmo ka degmo ama gobol ka gobol ah kadib waxa ay u gali jireen reero halkaas yaala markaasna waxaa la dhihi jiray hablo heerin ah baa soo galay halkaas ayaana lagu guursan jiray sida ay la tahay malahayga reeraha ay u galayaan waa ay sii sahansadeen malaha waxay ku maqleen doobab iyagana guurdoon ah ka labaad waa sahansasho marka ay qof dushaa ka sahansatay qof kale ka jeclaatay oo ay kalgacal u qaaday dabadeedna inta ay soo ogaato reerka qofka ay sahansatay ay gurigooda geli jirtay oo halkaas lagu guursan jiray dhanka kale gayga Soomaalida meelaha qaar ayaa isna waxaa ka jira mid kan u dhow hase yeeshee ay liidnimo iyo quraafaad ka buuxaan kaasoo loo yaqaan ilmadow oo malaha laga wado qof isheeda ay kulushahay oo haddii ay qofkaasi lagu sheegay ilkuleylka ay ka heshay naf kale oo ay sahansatay oo ay u gasho iyadoo naftii ay jamatay ay iska ilaalinayso ishaas madow ama in la ilaysto ay guurka aqbal oran jireen se waxaa iyana jirtay hadduu qofku markaa diyaar ahayn qof la walaal ah ama la asxaab ah ku dari jiray qofka wax soo sahansatay midka saddexaad ayaa loo yaqaan dumaal welina meelaha qaar waa uu kasii jiraa dumaal waa marka uu gabadh ninkeeda geeriyoodo oo tii alle u timaado in walaalkii ama reerkiisa mid looga keeno oo halkaas uu ku guursado aragtidaadana la wadaag dumaalka sidee u aragtaa dhanka kale xigsiin baa la yidhaah marka ninka ay xaaskiisa geeriyooto waxaa loo jeriyaa isna xaaskiisii gabadh la walaal ah midka afaraad waxaa la yiraahdaa la baxsasho ama isla baxsasho waa marka laba qof oo isjantay ay isla baxsadaan dabeetana waalidka dib looga sheego oo halka heshiisku ka dhaco waayahay markaana u soo diyaar garow qaybaha sida aadka ah marka aad maqasho aad afmaroojis ku waalanayso ama aad leedahay yahoo ee igale her kuwani waxaa ugu horeeya dhabar garaac waa marka qofka oo iska wadata hawsheeda oo aan war iyo wacaal hayn oo la socota koox gabdha ah iyagoo dhaan u socda uu habaar qabe soo watay asxaabtiisii dhaxda ka afduubto kadibna uu xoog ku geysto gurigiisa ambase aqalkiisa yahoo midka ugu sii liita waxaa loo yaqaano ku qaado waa midka ugu liita waa marka nin intuu gabar kufsaday alaqaadka ay reeraha go'aamiyaan inuu gabadhii guursado waa laba nabar oo naxdintooda leh sidoo kale midkan mid u magac eg ayaa jira oo la yiraahdo
ku qaad ama ku qaado oo ah marka gabadha quruxdeeda wax loo dhimo. Garaac iska daayay xagatin la gaarsiiyo ayaa lagu qasbaa kii xagtay ama dilay ama dhaawacay ama quruxdeeda wax u dhimay inuu guursado. Sidoo kale godob reeb waa marka beelo col ah oo uu dagaal dhex maray, dhiig badanna iska daadshay, ay gabdho marmar aad iyo aad u da'yar isa siiyaan si colaadda loo damiyo. Awowgiin alla gubiya gabdhaha maxoolaa. Yaaya gabdhaha alaab miya waxay tahay. Sidoo kale waxaa loo yaqaan marka uu gaf kala gaaro reero ayay hablo isweydaarsadaan. Markaana midka aan ku soo xirayo waa haasaawe oo ah marka laba qof oo heshiis ah oo dooqoodu israacay, isku qanacsan, isjantay oo isjeclaaday ay sheekaystaan ama isa shukaansadaan ama ay haasaawaan ama ay hoosta iskugu dhigaan, kadibna ay reer yagleelaan ambase ay nolol wadaagaan oo loo soo niyeysto reerkii lagu nastee lagu nagaado. Laba walxaatoo shiin ku taal sheegooda waa ku shaafiha. Naa rabtid in lagu sheego ama wax laguu sheego, biladayaha ka helin ee soo raac.